Koobkii adduunka ee Qatar 2022 ma ahayn oo kaliya tartan kubadda cagta ah ee wuxuu ahaa masrax ay ku kulmeen mucjisooyin aan horey loo arag iyo qisooyin xusuus mudan. Laga soo bilaabo guushii taariikhiga ahayd ee Messi ilaa kacdoonkii lama filaanka ahaa ee libaaxyadii Morocco, tartankan wuxuu dunida ku qabsaday xamaasad, oohin iyo guulo lama filaan ah. Haddaba daawade nala sii joog ilaa dhammaadka muuqaalkan. Waxaan ku soo qaadan doonaa 15 qodob ee ugu yaabka badnaa kuwaas oo ruuxay qalbiyada malaayiin taageerayaasha kubadda cagta adduunka. Hase yeeshee is-xasuusin, haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad soo booqato barteena YouTube, fadlan subscribe noo saar, sidoo kale like saar muuqaalka oo u share garay saaxiibadaada. Sidoo kale haddii aad iga daawanayso Facebook page-ka Guriga Ciyaaraha TV, fadlan na soo follow garay, like saar muuqaalkan oo u share garay saaxiibadaada. Mahadsanid. Aan u sii gudagalno muuqaalkeena. Qodobkeena koowaad, guushii Argentina iyo touchkii Messi. Waxa ugu weyn ee lagu xasuusto tartankan waa Lionel Messi oo ugu dambeyntii ku guuleystay koobkii uu muddo dheer raadinayay. Waxay u ahayd dhamaystirka sheekadiisa ciyaaraha, isagoo noqday xiddigii ugu horeeyay ee 2 jeer ku guuleysta abaalmarinta Golden Ball, ciyaaryahanka ugu fiican tartanka. 2. Mucjisadii Morocco. Morocco waxay dhigtay taariikh lama filaan ah, iyadoo noqotay dalkii ugu horeeyay ee Afrikaan iyo Carab ah oo abid gaara wareegga afar-dhamaadka ama semifinalka. Waxay reebeen kooxaha waaweyn ee Spain iyo Portugal, iyagoo dunida ka yaabiyay difaacooda adag iyo midnimadooda. 3. Jabintii Sacuudiga ee Argentina. Ciyaartii ugu horeysay ee guruubyada Sacuudi Carabiya ayaa ka yaabisay dunida kadib markii ay 2-1 kaga badiyeen xulka Argentina. Guushan waxay joojisay 36 ciyaarood oo Argentina aysan wax guul darro ah arkin, waxayna keentay in boqortooyada Sacuudiga looga dhawaaqo fasax qaran. 4. Finaalkii ugu xiisaha badnaa taariikhda. Ciyaartii finaalka ee dhexmartay Argentina iyo Faransa waxaa loo arkaa mid ka mid ah finaalkii ugu fiicnaa ee abid kubadda cagta la ciyaaro. Waxay ku dhamaatay 3-3 kadib waqtigii dheeriga ahaa, iyadoo goolal degdeg ah iyo laadadka xurta ah lagu kala baxay. 5. Hat-trick-gii Kylian Mbappe. Inkastoo dalkiisa laga badiyay, haddana Mbappe wuxuu noqday ciyaaryahankii labaad ee taariikhda finaalka koobka adduunka ka dhaliya 3 gool. Wuxuu ku guuleystay abaalmarinta kabta dahabka ee Golden Boot, isagoo dhaliyay 8 gool tartankaas. 6. Markii ugu horeysay ee dal Carab ah lagu qabto koobka adduunka. Qatar 2022 wuxuu ahaa koobkii ugu horeeyay ee lagu qabto dal Carab ah iyo gobolka Bariga Dhexe. Waxaa lagu xasuustaa dhismaha garoomo casri ah oo leh qaboojiyaal iyo nidaamka gaadiidka oo aad u habeysnaa. 7. Garsoorayaasha haweenka ah. Markii ugu horeysay taariikhda koobka adduunka ee ragga, waxaa ciyaaraha dhexdhexaadinayay garsoorayaal haween ah. Stefania oo u dhalatay dalka Faransiiska ayaa noqotay haweeneydii ugu horeysay ee dhexdhexaadisa ciyaar koobka adduunka ah. 8. Japan iyo ka badintii Jarmalka iyo Spain. Japan waxay muujisay adkaysi la yaab leh, iyadoo soo laabasho cajiib ah ku sameysay labada dal ee waaweyn ee Jarmalka iyo Spain, iyadoo kaga badisay mid kasta 2-1. Japan waxay sidoo kale caan ku noqdeen taageerayaashooda oo nadiifinayay garoonka ciyaarta kadib. 9. Ka bixitaankii Jarmalka ee wareegga koowaad. Mid ka mid ah yaabkii ugu weynaa wuxuu ahaa in xulka Jarmalka oo 4 jeer ku guuleystay koobka adduunka uu ku haray wareegga guruubyada markii labaad oo xiriir ah. Tani waxay u ahayd Jarmalka musiibo weyn, waayo waxaa lagu yaqaanay awoodda kubadda cagta. 10. Goolkii tiknoolajiyadda ee Japan vs Spain. Goolkii guusha ee Japan ay ka dhalisay xulka Spain wuxuu dhaliyay dood weyn. Kubadda ayaa u muuqatay inay leenka dibadda uga baxday, laakiin tiknoolajiyadda VAR ayaa xaqiijisay in qayb yar oo ka mid ah kubadda ay weli leenka saarneyd, taas oo keentay in xulka Jarmalka uu tartanka ka haro. 11. Ooyintii Cristiano Ronaldo. Muuqaalkii Ronaldo isagoo ooynaya kuna sii socda qolka labiska kadib markii Morocco ay reebtay Portugal wuxuu ahaa mid caloolxumo ku reebtay taageerayaashiisa. Waxay u muuqatay dhammaadkii riyadiisii ahayd inuu mar uun ku guuleysto koobka adduunka. 12.
Wogres iyo iska caabintii Netherland. Ciyaartii ruwac dhamaadka ee Argentina iyo Netherland, ciyaaryahan Wogres ayaa soo galay isagoo bedel ah wuxuuna dhaliyay 2 gool oo midka dambe uu ahaa daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta. Ciyaartaas waxay ahayd tii ugu kaarka badneyd waxaana ka dhashay muran badan. 13 dhacdadii bisada iyo tababare ku-xigeenka Brazil. Intii lagu guda jiray shirkii jaraa'id, Bisad ayaa soo fariisatay miiska ay ku shiraayeen xulka Brazil waxaana si qalafsan u tuuray Bisadii sarkaal u hadlayay xulka Brazil. Taageerayaal badan ayaa rumaysnaa in habaarkii Bisada uu ahaa sababtii Brazil looga reebay tartanka ciyaartii xigtay ee Croatia. 14 dabaaldegyadii geesnimada lahaa ee Morocco. Dabaaldegyadii xidigaha Morocco sida Achraf Hakimi iyo Sofiane Boufal ay la sameeyeen hooyooyinkood garoonka dhexdiisa waxay noqdeen sabrida ugu saameynta badnaa ee muujiyay qiimaha qoyska iyo dhaqanka dadka Muslimka ah. 15 waqtiga dheeriga ah ee ciyaar kasta. Tartankan waxaa lagu arkay wax cusub oo ah in garsoorayaashu ay ku darayeen waqti aad u badan. Ciyaaraha qaarkood waxay gaarayeen 10 ilaa 15 daqiiqo oo dheeri ah, taas oo loogu talagalay in lagu xaqiijiyo in waqtigii lumay ee dabaaldegyada iyo dhaawacyada la magdhabo. Haddaba saaxiibayaal, waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii koobkii adduunka ee Qatar 2022 wuxuu ahaa mid ka tagay dhaxal dahabi ah iyo sheekooyin jiilba jiil u gudbin doona. Ma ahayn oo kaliya koob lagu guuleystay, laakiin wuxuu ahaa xilligii isbedeshay aragtida kubadda cagta iyadoo lagu arkay midnimada qaaradaha, jabinta rikoorada iyo boqorka cusub ee ruuxay caalamka. Waxay ahayd bil bilowday xamaasad kuna dhamaatay xusuus aan marnaba duugoobi doonin. Haddaba saaxiibayaal, waxaa intii noogu eg muuqaalkeena. Intaan ku kulmi doono muuqaalkan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.